الله الرحمن الرحيم waxaan walaalahay u sheegaynaa in shalay salaadii aroornimo galbeedka city gaar ahaan daymeed dagaal saf ballaadhana ay ku soo qaadeen xoogagii dowlad deegaanka afarta oo ay garbinayaan xoogag shisheeye waxa weeye weerarka safka ballaaran ay soo qaadeen ujeedadoodu waxay ahayd wixii ay horay u sii sheegeen in ay dhulka dowlad deegaanka gobolka city ay imanayaan ilaa iyo erer ay dhulka oo dhanna ummadda intaa leegna ay ka barakicinayaan qorshahoogii siduu ugu fulo iyay arrintaa u sameeyeen waxayna isticmaalayeen hub casriya oo noocyadiisa kala duwana hubkaas oo dowlado waaweyn maahina ay gobollo la odhan karo dowlad deegaano Soomaaliyeed aynan haysan siday dooni ahaatee geesiyadii aaggaa deganaa hadday yihiin liyu booliska iyo hadday yihiin dhalinyaradii galbeedka city deganayd way iska daaficeen way weerarkii lagu soo qaaday way iska caabiyeen meel bay iska mariyeen cadowgiina wuu ku jabay dibna wuu u laabmay waxa weeye kolkaa waxaan anigu maanta halkan aan u soo fadhiistay waxaan xasuusinayaa shacabka ku nool gobolka city iyo dowlad deegaanka Soomaalidaba in dadka dhulkooga la damcay city in la damcay waxaan horey u sheegnay bahayn in damacii la watay waqtiga lagu qabsaday garbaciise cadaytu cundufo dan la helay gudahana la soo galay dowlad deegaanka Soomaalida in la soo galayana waan neesi sheegnay waan u sheegnay waar xoog inta leeg baa jiray ka tababushaysto iska celiya ka tababushaysto wax ka sameystaan nidhibayd Soomaaliya aan u sii sheegnay reer galbeed city shacabka galbeedka city waxaan maanta halkan aan soo fadhiistay waa digniin war maanta waxa loo socdaa in lagu tirtiro waa isirtirtirid waa qorshe dheer oo ay wadaan dowlad deegaanka Soomaalida xoog Itoobiya gudihiisa iyo xoogo kale oo dibadda ah oo raba city dhammaanteed in laga safeeyo shacabka ku nool Ilaahay baa wax sifayn kara xilliga waxaan u sheegayaa maanta waxaan leeyahay walaalayaal darad waan niiga dignay waan ku celcelinay dhibtu sida u socotaan sheegnay maantana way soo noqoto way joogtaa mana joogsanaysa tani xilliga waxaan ka leenahay ganacsatada gobolka city iyo Soomaalidaba in maanta ay jeebkooga furaan in hantidooda ay ku daafacaan walaalahood waxa kaloon u sheegaynaa dhalinyarta city degan iyo dhalinyarta Soomaaliyeed in wadankooga ay difaacaan oo cadowga ka difaacaan in dhammaan hurdada laga saro u kaco hooyada waxaan u sheegaynaa inay kacdo war meel kasta joogtaan hadday tahay qurbo iyo hadday tahay Jabuuti iyo hadday meel kale tahayba war waa lagu yimiday wax loo socdina waa adiga wax la baabiin waa adiga waxani waa qorshe weyn oo ballaaran haddaad maanta aad ka tashan weydaanna haddaad maanta ka gurmad weydaanna weligii jiri maysaan jiritaankiinii baa la masay waxaan kolkaa u sheegayaa walaalahayaga gaar ahaan galbeedka city waar hurdada ka kaca waar ka kacno hurdada waar han tagno maadatay furunta waar dadka han difaacno waa ninba wuxuu haystaa ku difaaco kii aqoon ku difaacaya aqoon ku difaaco kii hanti kale ku difaacaya hanti ku difaaco kii xoog ku difaacaya xooga ku difaaco haddaan intaa sameyn weyno jiritaankeenu ma jirin waxaan kolkaa ka digayaa shalay baan ka dignay
daraad baan ka dignay wax kastaan sheegnay sidii aan u sheegnayna u dhacday tanna haddii aan kici weyno sidii iyo si ka daran baa u dhacay xilligaa waxaan leeyahay walaalayaal han gurmano maanta waxaan aan qabanay halkan aan ku qabtay waxa weeyaan waa gurmad waar hal la gurmado oo hal la gurmado ugu dambayn waxaan leeyahay geesiyadii ku shahiiday iyaga oo difaacaya dhulkooga annaga oo kala qaadqaadayn ee halkaa ku shahiiday waxaan leenahay allah u naxariisto dadkii annagana ilaahay sabir iyo iimaan ha naga wada siiyo ehelladooda iyo qaraabadoodana allaha ka samir siiyo kuwa ku dhaawacmayna waxaan leenahay allah u boogadayo sidaa baan leenahay waxay ku shiideen waxay u dhinteenna waa dhulkoogii waa waajibkii ka saarnaa waa geesiyaal waxaan leenahay allah u naxariisto asalaamu calaykum